2024 waa inaad sida ugu dhaqsiya badan noloshaada ugu soo dartaa arrimahan aan kula wadaagi doono haddii aysan horey oga mid ahayn ama aadan horey u samayn jirin. Assalaamu calaykum, soo dhawaada saaxiibayaal. bal maanta aan break ka yara qaadano luqadda Englishka oo aan muuqaaladii ugu dambeeyay uga hadlaynay. shakhsi kasta waxaa jira waxyaalo dabeecad u ah haddana qiimihiisa iyo shakhsiyadiisaba kor u qaadayo balse uusan asaga ogeyn. sidoo kale waxaa jiro shakhsiyo ay ka maqan yihiin caadooyinkaasi wanaagsan ama ka waasada in ay sameeyaan ama noloshooda ay kusoo daraan. ila dhammaysa muuqaalkan si aad kor ugu qaado habfakarkaaga iyo caadooyinkaaga wanaagsan. waxaan si toos ah ugu gudagalaynaa qodobada aan rabo in aan kula wadaago. waxaan muuqaalkan kugu soo gudbin doonaa marka 5 qodob ama caado oo haddii aad noloshaada kusoo darto 2024 ay noloshaada noqon doonto mid 100 jeer ka farxad badan kana wanaagsan tii sanadadii hore. arrinka ugu horeeya ee aan muuqaalkan kugula wadaagi doona ayaa ah ku dadaal xiriirka adiga iyo boqorkaaga. adiga Ilaahay subxaanahu wa tacaala xiriirka kaliya ee idinka dhaxeeya waa salaada. haddii xiriirka adiga Ilaahay idinka dhaxeeya aad jirtid, adigana xiriirkaaga ayuu jaraya. haddii aad ka habsaami jirtay marka salaada in aad tukato ama ay ka tagi jirtay maanta wixii ka dambeeya, ha ka ogolaanin naftaada inay arrinkaasi ku dhacdo. xiriirka adiga Ilaahay idin dhaxeeya waa salaada. marka hagaaji salaada 2024 ka dhig sanadkaagii. midda labaad ee kula wadaagaya marka waxay tahay organize your space or clean your space. hagaajinta meesha ama qolka aad ku nooshahay waa waxa ugu yar uguna muhiimsan ee noloshaada aad ku soo dari karto haddii aysan ku jirin oo aadan horey u samayn jirin. haddii aad horey u samayn jirtayna waxaa tahay qof qiimihiisa yaqaana. maalinkaaga in aad ka bilowdo hagaajinta sariirta aad ka kacday waa waxa maalinkaaga qiimaha u yeelayo. ma ogtahay haddii qolkaaga uu isdhex yaalo dharka aad iska bixisayna maaragtay aad qolka dhan kasta ka geysay ama ay ka yaalaan ama ay ka qabsadeen, in cid kasta ay ku aqoonsan doonto in aad tahay messy or dirty guy. ma aqaani Soomaali ahaan qaab aan ugu dhawaaqo ama aan u sheego amaba iska dheh areebo ama areeb, wasaqlow, qurunlow. raaxo kuma dareemaysid qol noocaas u eg. marka si aad ugu raaxaysato noloshaada qiimahaagana aad kor ugu qaado, always keep clean your space, okay? ka dhig 2024 sanadkaagii. iskana bedel dabeecadaasi liidata ee qolkaagan ama meesha aad ku nooshahay markii la arkaba detiga ah. midda saddexaad ee aan kula wadaagaya marka waxay tahay keep clean your body. ma ku dadaashaa nadaafadda jirkaaga. waxaa jira wax la yiraahdo personal hygiene ama nadaafad shakhsiyadeed. waxaad arkaysaa shakhsiyaad qaar markii ay ku ag maraan aad dareemayso ciriiri iyo in weliba naqaska uu ku dhibo. siiba wiilasha. listen boys, please upgrade or level up your personal hygiene. How dare you can aspire talking to a woman since your personal hygiene is zero? sidee ugu dhiiran kartaa in aad la hadasho qof dumar ah ama gabar halka nadaafad shakhsiyadeedkaagu uu yahay zero, mid ever ah ama ka hooseeya heerkii la rabay. kale waxaan isdhahaa dadka qaar maba isdareebaan miya, maxaa ka qaldan? ma sheegi karo run ahaantii. please ku dadaal nadaafadaada. 2024 ka dhig sanadkaagii. midda afraad ee kula wadaagayana waxay tahay exercise ama jimicsiga. middaani waa mid aad muhiim u ah. annaga haddii Soomaali aan nahay, jimicsiga ama jiimka in aan aadno waxaan ka aaminsannahay fikrad qaldan. gym is for everybody. kaliya looguma talagelin dadka burburan. xitaa kan caatada ah waxaa loogu talagalay in jirkiisa iyo murqihiisa uu ku koriyo jiimka. waxaa tusaale cad ku ah saaxiibkan Shuaib Eidbag. he was 48 kg and now he's 90 kg. 48 kilo ayuu ahaa. aad ayuu caad u ahaa. haddana waa 90 kg ayuu cagacageenaa inuu hoos oga soo dhacay. hadda ma garanayo. aniga waa dhiirigeliyahayga Mustafa Shuaib Eidbag. halkan ayaan ka salaamaya, waana oga mahad celinaya dhiirigelintiisa. aniga caato ma ahayn, laakiin jiimka shidaalka aan ku tago qayb ayuu ka yahay Shuaib Eidbag oo uu dhiirigeliyaa. marka faa'iidooyinka aad ka helayso in aad jiimka aado waxaa ka mid ah kow, caafimaadkaaga oo waxaa kor u kacayo inta aad u dulqaadan karto caqabadaha sida socodka dheer, orod iyo waxyaalaha dhibka ah markii la qabanayo. sidoo kale waxaa hoos u dhacayo cardiovascular ama cudurrada wadnaha ku dhaca sida cholesterolka, iyo in aad hesho oo kugu dhaco cudurka keena in qofka loo xiro barnaamijkii la yiraahdo pacemaker oo aan u naqaano bateriga wadnaha la geliyo kale. waxaana keena long resting body ama dhaqdhaqaaqa yar ama jirka mostly iska restiga ku jira ayaa keena. midda labaadna waxaad ka helaysaa happiness ama farxad joogto ah. waxaad noqonaysaa qof high value ah. qiimo sare ayaad dareemaysaa. waad isjeclaanaysaa. raaxo ayaad dareemaysaa. weliba waxaad noqonaysaa jiimka waqtigiisa
inaad wax kale ku mashquulisid ma ogolaanaysid mar haddaad bilowdid laakiin waa in markii aad bilowdid aad u dulqaadataa 3 asbuuc ama 4 asbuuc oo horeysa bisha ugu horeysa haddaad indhaha isqabatid wixii markaas ka dambeeya yacni intaad la qabsatid ayaad waqtigiisa xataa inaad meel yacni qaldan aad gelisid ayaad u diidi doontaa naftaada mid saddexaadna waxay tahay waxaa kaa tegaya stresska oo waxaad noqonaysaa qof stress free ah stresska free aad ka noqonaysaa ma noqonaysid qof stress badan so go to the gym and make 2024 your best year midii shanaad ahna mid ugu dambaysa waan kula wadaagayo muuqaalka wuxuu noqon doonaa muuqaal iska yar gaaban waxaana jeclaystay inaan maaragtay kula wadaago 5 arrin oo muhiimka ah oo haddii 2024 maaragtay naftaada aad ka bedeshid yacni wax badan aad iska dareemi doontid midii shanaad marka waxay tahay daily plan midkan waa waxa ka dhigayo suuragal inta aan soo sheegnay oo haddii aadan qorsheynin inta aan soo sheegnay maalinna suuragal ma noqonayso waa inaad daily plan lahaataa oo aad daily plankaaga ku qortaa in salaada subax aad waqtigeeda ku kacdaa in aad qolkaaga hagaajisaa inta aadan ka bixin in aad naftaada clean garaysaa sidoo kale in aad gymka aadaa okay so daily plankaaga intaas uu ka badan yahay oo maalinkaaga intaas kuma koobna laakiin waa qayb ka mid ah maalinkaaga oo aad kor ugu qaadi karto qiimahaaga iyo noloshaada farxadeeda iyo interestiga naftaada ee dadka kale marka daily planka waa muhiim daily plan is so important ka dhig 2024 sanadkaaga oo isbedel dhab ah la imow kana kac fadhiga aniga kula hadlayo fadhiga waan ka kacay waxyaalo badan isbedel ayaan ku sameeyay kuwa kale oo fara badanna oo ku sameyn doona insha Allah taala it is 2024 shidaalkaaga ha noqoto okay markasto aad maaragtay rabtid inaad wax samaysid ama wax qaldan aad sameyn rabtid waa inaad naftaada u sheegtaa inay tahay 2024 waa inaad shidaal ka dhigataa it's 2024 waxaan rajaynayaa in aad isbedel dhab ah la imaan doontid insha Allah midna xasuusnow awoodda horumarinta naftaada waxay ku jirtaa gacantaada let's make it happen then assalamu alaikum